السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaan rabaa laba qodob oo muhiim inaan ka hadlo. mar raba hadalkan aan ku sii dheeraado. qodobka koowaad waxa waaye Cabdiwali Cali Gaas iyo maamulkiisa inay ku fashilmadeen waxa qabadkii Puntland oo loo doortay. Puntland Mafia Organization inay ku fashilmatay waxa qabadkii Puntland oo January 2014 loo doortay kaasoo noqday mid aan waxba qaban. laba sano iyo bar ayaa maanta laga soo wareegay waqtigii la doortay. hal qodob ama hal wax oo laga qabtay ma lahan. Cabdiwali Cali Gaas waxaan u baaqaynaa anagoo ah beelaha bari inuu is-casilo sida ugu dhaqsiyaha badan uu isku dhiibo Mudane Galan. Mudane Galan waa ninka kali ah oo horumar iyo cadaalad iyo wanaag iyo wax walba oo Puntland ay maantay ay ku ficil tagto suubin kara. waa Mudane Galan waay. tan labaad Cabdiwali Cali Gaas nimanka uu soo diray oo gobolka bari u soo diray oo askarta ah oo ciidamada ah oo isaga beeshiisa ah waxaan leenahay adeerayaal waa layna soo khalday Cabdiwali Cali Gaas wuu soo khalday reer bari idima rabaan reer bari intaad dhacayseen waa dhacdeen intaad wax xumaana iyo wax walba oo daraa aad ku subinayseen waad subiseen waxaan leeyahay isku dhiiba Cabdisamad Maxamed Galan hubka iyo wax walba u dhiiba laydima taabanayo idinku nabad qaba baad ku laabanaysaa mid haddii aad laakiin dhiibi weydaan hubka oo dagaal meeshaas aad ka bilowdaan ogaada idinka in layni haysto ma jeerteen iyo Soomaali waa in yar oo istaqaan inay hebel baana la isku yaqaanaa. Cabdiwali Cali Gaas hadda wuxuu joogaa Baydhabo waan wacnay waan la hadalnay waxaan ugu baaqnay Cabdiwali Cali Gaas inuu xilka ka dago oo iska casilo waan sugeynaa jawaabtiisa oo neer ilaa Isniinta naga warsuga waan sugeynaa haddii uu diido xilka inuu iska casilo hadda waxa imaanaysa dagaal hor leh. Puntland ma rabto dagaal hor leh. Puntland 18 sano bay soo jirtay waxay soo jirtay waa nabad iyo dulqaad iyo tanaasul in wax walba loo kala tanaasulo. hadda aniga beeshayda bixidaan cali baarahay wasiir kuma leh baarlamaan kuma leh waxaan ku leeyahay male haddana habbi baana intaas oo sano laakiin markaan arkay Cabdiwali Cali Gaas iyo Puntland Mafia Organization inaan waxba aysan wadin oo wax walba beelahooda ay siinayaan. Puntland hadda gobolka bari waxa ka soo baxa inay ay booyaan dakhliga Puntland waa gobolka bari saas ay tahay dakhliga gobolka bari la geliyo waa 0.0 wax macquul ma dakhligaas oo dhan waxa la geeyaa Garowe Qardho iyo tuulada Jariban. ana waxyaabo badan baan ognahay waxaanu xiriirinaynaa waa qadarin waa Soomaali waa sharaf waxyaabo badan baan rabin inaan ka hadalno laakiin Cabdiwali Cali Gaas iyo xulfadiisa Puntland Mafia Organization way ku fashilmadeen si waliba xun aad iyo aad bay waliba ugu fashilmadeen. waxaan leenahay isku dhiiba Cabdisamad Maxamed Galan ninkaas ayaa maamulaya ninkaas ayaa wuxuu wadaa wax walba oo wanaag intaasna waa iga anigoo ka soo jeeda gobolka bari waa iga waano iyo iga dardaaran wabillahi tawfiiq.